ismaqal iyo iid wanaagsan waa markani qodobadii ugu xiisaha badnaa Soomaaliya ee caalamka. qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah waaro oo baaq culus u diray shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo shacabka Soomaaliyeed uga hambaliyay munaasabadda Ciidul Carafo. Madaxweyne Farmaajo oo shacabka u diray hambalyada ciidda iyo baaq xoogan. Wararkii ugu dambeeyay mooshinka la horgeeyay baarlamaanka Somaliland. Baarlamaanka Soomaaliya oo qaadaya tallaabo ka dhan ah ciidamada Kenya. Axmed Madoobe oo ka digay arrinta ka dhalan karta qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan hadduu ay bagadmo. haatan u diyaar garooba qodobadaas oo intaasi ka faahfaahsan. aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda Ciidda Carafo ugu diray ummadda Soomaaliyeed. Khayre ayaa ugu baaqay guud ahaan shacabka inay iscafiyaan isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka dalkooda. sidoo kale wuxuu u rajeeyay in sanadkani kiisa kale ee ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. maalinta koowaad ee Ciidul Adha ayaa maanta si weyn looga dabaaldegay Muqdisho iyo guud ahaan magaalooyinka kale ee dalka. xildhibaan Saciid Warsame Ismaaciil Gaane oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland isla markaana ah gudoomiyaha guddiga kheyraadka golaha ayaa maanta ka hadlay halka uu marayo mooshin uu gudbiyeen golaha wakiilada Somaliland. xildhibaanka ayaa sheegay in mooshinka ay golahaasi u gudbiyeen lagu sameeyay is-hortaag balse ay ku guuldaysteen in laga doodo ciidda dabadeed. Gaane ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in caqabadaha hortaagan qabsoomidda doorashada ay sabab u yihiin dib u dhac ku yimid doorashooyinka Somaliland. xildhibaanka oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa wuxuu yiri mooshinkan aan gudbinay 15 mudane ee labada kulmiye nagu jireen dagaal baa la galay waxaana la isku dayay in la hor istaago laakiin taasi suurtagal waa ay noqon weyday oo sharcigu wuxuu dhigayaa in tirada ugu yar ee mooshin keeni karta ay noqdaan 11 mudane anaguna waxaan noqonay 15 mudane. ciidda dabadeed ayaanu ka doodi doonaa haddii alla yiraahdo haddii wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo. haddii sidaas lagu dayanayaba waa wax xildhibaanadu dood dheer ka yeelan doonaan. waxaase la isku dayay in wax nala marsiiyo ama nala jiijido taasina suurtagal waa ay noqon weyday. wuxuu intaasi ku sii daray gudoomiyaha mooshinka hadda ayuu sheegay in ay doorashada dib u dhacayso laakiin anigu mar hore ayaan warbaahinta ka sheegay in ay doorashada dib u dhacayso. waxyaabaha keenay dib u dhaca doorashada wax qarsoon ma aha ee waa wax loo baahan yahay in mar horeba wax laga sii qabto. doorashada oo la qabto waxaa ka horeeya in waddada loo sii xaadho oo wixii caqabada ay jira in wax laga qabto oo meesha laga saaro in haddana caqabadaasi ay weli sii taagan yihiin markaasi waa ay qabsoomaysaa doorashada. warar qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Hirshabelle ayaa lagu yiri madaxweynaha dowlad deegaanka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare oo ku hadlay afka golayaasha Hirshabelle ayaa waxa uu hambalyo ku aadan munaasabadda Ciidul Adha ugu diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabelle. madaxweynaha ayaa sheegay in maalmaha farxadeed awgeed loo baahan yahay in ay iscafiyaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed isla markaana laga farxiyo dadka danyarta iyo ubadkeena soo koraya. ilaah waxaan uga baryayaa in sanadkani sanadkiisa kale nagu gaarsiiyo nabadgelyo horumar wadajir midnimo iyo in aan ka shaqeyno midnimadeena iyo horumarkeena ayuu yiri madaxweyne Waare. waxaan rajeynayaa in Soomaaliya wanaagsanaato in Soomaaliya horumarto in Hirshabelle meesha ay hadda joogto sanadka dambe meel ka fiican ay gaarto dhanka horumarka iyo nabadda ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne Waare. madaxweynaha Hirshabelle waxa uu sidoo kale baaq nabadeed oo ku aadan joojinta colaad beeleedyada marmarka qaar Hirshabelle ka dhaca in lagu bedelo walaalnimo iyo waxqabsi. waxaan rajeynayaa in caqligu shaqeeyo. waxaan rabaa in aan ku booriyo culimo oo diinka madax dhaqameedyada ganacsatada waxgaradka reer Hirshabelle in ay u kacaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen horumarka dowladnimada ayuu yiri madaxweynaha Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare. ugu dambeyntii waxaa sidoo kale Ciidda Carafo ugu diray guud ahaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya kuwa Hirshabelle iyo ciidamada AMISOM ee ka howlgala Hirshabelle gaar ahaan ciidamada Hiil Walaal ee Djibouti iyo shacabka walaalaha Djibouti isagoo u rajeeyay caafimaad qab iyo horumar. dhowaan xubno ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa baarlamaanka dalkaasi waxay u gudbiyeen mooshin ay ku dalbanayaan in ciidamo la geeyo dhulbadeedka Soomaaliya ee ay Kenya muranka gelisay. waxaana tallaabadaasi ka jawaabay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in Kenya darisnimada Soomaaliya kala dhaxayso ay wax badan xeerisay hase yeeshee Kenya ay horseedo in dhibaatada Soomaaliya haysato in ay uga faa'iideysato aysan jirin wax uga daran
xiran horay ayaa loogu maahmaahay nin degan guri muraayad lahow dhagax tuuryo ha bilaabin laakiin waxaan leeyahay Kenya haddaad isku daydo inaad ka faa'iidaysato nabad la'aanta haysata dadka Soomaaliya ayna ku gacan haatiyaan dad aan waxba ku tari doonin ayuu yiri xildhibaan Dalxa sidoo kale xildhibaanka oo wareysi siiyay TV-ga Somali Cable ayaa wuxuu sheegay in haddii baarlamaanka Kenya ay ansixiyaan mooshinka la horgeeyo ee ku saabsan in ciidamo la geeyo badda Soomaaliya oo ay Kenya muranka gelisay ay iyaguna baarlamaanka Soomaaliya ansixin doonaan mooshinka dalka looga saarayo ciidamada Kenya dhinaca kale xildhibaan Cali Jawhar oo kamid ah golaha shacabka ayaa dhankiisa wax uu sheegay in xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya uu yahay shakhsiga baarlamaanka dalkaasi u gudbiyay mooshinka isla markaana uu ka leeyahay dana siyaasadeed oo u gaar ah waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in haddiiba dowladda Kenya ay ku dhawaaqday tallaabo military aysan ka dhaxaynin wax xiriir ah waxaana uu sheegay in qorshaha uu wado baarlamaanka Kenya aysan u socon doonin dadka Soomaaliyeedna ay midoobi doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed munaasabadda barakeysan ee Ciidul Adha madaxweynaha ayaa tilmaamay mudnaanta gaarka ay leeyihiin maalmahani barakeysan ee bisha Carafo oo astaan u ah naxariista ilaalinta danta guud iyo midnimada dadka muslimiinta ah maalmahani barakeysan oo bisha Carafo waa maalmo ku weyn diinteena iyo dhaqankeena waa maalmo ay kumanaan muwaadiniin ah u jihaystaan sanad kasta gudashada waajibaadka xajka iyaga oo naftooda dadkooda iyo dalkooda alla uga baryaya naxariis barwaaqo iyo wanaag oo idil sidoo kale madaxweynuhu wuxuu ugu hambalyeeyay geesiyaasha ciidamada qalabka sida ee ku sugan furumaha dagaalka guula isdaba joog ah ayay ka soo hoyayeen howlgallada ay dalka kaga xoreynayaan argagixisada waxaan u dabaaldegaynaa ciidani iyada oo geesiyaasheena ciidamada qalabka sida ay ka xoreeyeen maleeshiyaadka argagixisada ah deegaana hor leh oo cadowgaasi ay ku dhibaateynayeen dadkeenna kana soo maleegayeen dhagarta iyo gumaadka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed madaxweyne jamhuuriyadda ayaa ugu baaqay dhammaan dadkeena Soomaaliyeed in ay istaag weelayaan oo garab istaagaan dadkeena danyarta ah si aynu wadajir uga qaybsanno farxadda ciida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu alla uga baryay shacabka Soomaaliyeed iyo muslimiinta daafaha adduunka ku nool ee u dabaaldegaya munaasabadda ciida caafimaad horumar nabad iyo barwaaqo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa uga digay in dowladda Soomaaliya ay faragelinta ka wado Jubbaland ay ka sii dari doonaan xaaladda oo kaliya isla markaana dhibaato horseedi doonaan Axmed Madoobe ayaa hadalkani ka hor sheegay maanta mas'uuliyiin iyo dadweyne kala duwan oo uu salaada Ciidul Adha kula tukaday xarunta madaxtooyada Jubbaland isaga oo sheegay in dowladda ay dalka dib ugu celinayso halkii uu ka yimid madaxweynaha ayaa marka hore dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabada weyn isagoo u rajeeyay in ay iscafiyaan oo gacmaha isqabsadaan sidoo kale shacabka reer Jubbaland ugu baaqay in midnimadooda ay adkeeyaan oo ay nabadgelyada kala shaqeeyaan hay'adaha ammaanka isagoo xusay in nabadgelyadu ay cid walba ahmiyad gaar ah u leedahay arrimaha doorashooyinka ayuu sheegay in qof walba uu dantiisa ka hormariyo midda guud oo xukunka uu maalmo kooban yahay loona baahan yahay in shacabka loo adeego dowladda federaalka Soomaaliya ayuu u sheegay in ay faragelinta iyo xaalad abuurka ay wado una dan u hayn shacabka taas oo mar walba xaaladda uga sii darayso isla markaana burbur u keenayso dadaaladii muddada dheer soo socday sida uu hadalka u dhigay gobolkan hadda joogno waxa la doorasho ka jirta doorashadaas waxay abuurtaa xiqdi waxay abuurtaa cuqdad waxay abuurtaa inuu nin walba ilaa ninka kale aduu ku wanjaafayaa meeshaad u riixanaya waxay abuurtaa kala fogaansho waxaan oran lahaa markaa midaas inay nagu abuurin qofka shaqahayay ka sii haya iyo ka qabanaya kulligood waa mas'uuliyad qof walba waliba culayskeeda ay leedahay waxaa loo baahan yahay markaa inuu qof waliba garto waxaan lagu ordayana inay tahay mas'uuliyad bari la isweydiinayo ama xildhibaan ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo oo la weydiinayo waxa uu sameeyay iyo waxa uu kala kulmay iyo sida wuxuu qabtay iyo shaqada loo igmaday inta uu gaarsiiyay waa mas'uuliyad qof walba la weydiinayo waxa laga yaabaa wax maanta aad ku ordayso oo aad doonayso ilaa inaad sidaa qabato oo haddii aad qaban weydo ay dhibaato kale kugu noqoto inay berri adiga kugu keento nidaamo oo laga yaabo inaadan xaqeediina siinin mas'uuliyadduna ay culus tahay oo dadkaad mas'uulka ka tahay aad garanayso